faaqidaada wararka caalamka. madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa amar adag dul dhigay madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan kadib golan xasaasi ah oo labada dhinac maanta ay yeesheen. waxaa la isku dayayaa madaxweyne Erdogan in laga soo furfuro madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin isla markaana wadanka Turkiga uu joojiyo iibsashada shidaalka wadanka Ruushka ka imaanaya. haddaba suuragal ma tahay tallaabadaasi in si degdeg ah uu ku wargeliyo madaxweynaha wadanka Turkiga iyo guud ahaanba dawladda Ankara? barnaamijka ayaan ku faaqidayaa intaan idila jooga khiyaarta ay nala socotay. dhinaca kale marka la fiiriyo isla wararka ka imaanaya dunida, wasiirka wasaaradda difaaca ee wadanka Mareykanka Pete Hegseth ayaa u yeeray in ka badan 800 oo generaal oo Mareykan ah kuwaasi oo ku kulmi doona saldhigga ciidamada badda ee Mareykanku ay ku leeyihiin Virginia. walaac dagaal miyaa jira? maxay tahay sababta tallaabooyinkan degdeg ay u qaadayso wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka? ujeedadu ma waxay tahay walaac iyo baqdin laga qabo awoodda sii fidaysa ee wadanka Shiinaha? ma waxaa la gaaray xilliga Mareykanku uu qaadi lahaa go'aano degdeg ah? maxayse ka dhigan tahay generaaladan hadda loo yeeray? damaca Mareykanka iyo isbeddelka difaaca iyo gaashaandhigga wadankaasi ayaan idinla wadaagi doonaa, iyo kulanka xasaasiga ee lagu wado inuu ka dhaco magaalada saldhigga ciidamada Mareykanku ay ku leeyihiin kuwa badda gobolka Virginia. waxaan sidoo kale faaqidayaa khiyaarta ay nala socotay inta barnaamijkan aan ku guda jira caawa weerar maanta lagu qaaday magaalada Sanca ee wadanka Yemen. in ka badan 20 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka Israa'iil ayaa weerarkan ka qayb qaatay. qasaarooyin kala duwan ayaa la soo sheegaya, waxaana Israa'iil ay ka baqatay dhibaatooyinkii shalay ka soo gaaray weerarkii diyaaradda droonka ah loo adeegsaday ee lagu qaaday magaalada xeebta ku taalla ee Ilaad, dhulka Falastiiniyiinta laga haysto ay hadda Israa'iil maamulayaan. magaaladaasi oo loo diyaariyay mid dalxiis ah, hase ahaatee shalay cashar lama ilaawaana uu ka dhacay. waxaan sidoo kale eegi doonaa inta barnaamijka aan wada joogno, ciidamada Israa'iil gaar ahaan kuwa booliiska ayaa gacanta ku dhigay nin 40 jir ah oo ku dhawaaqay inuu qaarajin doono ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. 3 xabadood ayaan ku dhufan doonaa ayuu yiri. ujeedadiisuna waxay tahay inuu dunida ka geeyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo hadda wajahaya dhibaatooyin culus. haddaba sidee arrimaha laamaha amniga arrintan u falanqeynayaan? barnaamijka ayaan guud ahaanba ku lafaguri doonaa qodobadaas iyo kuwa kale. waxaan ahay Cabdicasiis Barrow, waxaadna daawanaysaan qubanaha koowaad ee caawa iyo Barrow Show. meel kasta oo aad joogtaan akhyaaray soo dhawaada kuna soo biira YouTube-ka oo subscribe saara. aad baad u mahadsantihiin. ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya, ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka? maalin waliba wuxuu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar. aan ku horeeyo warka ka soo baxay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump kulankii maanta uu la yeeshay dhigiisa wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. kulanka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa dhinacyadu waxay isla soo qaadeen xiriirka labada dhinac, laakiin waxaa muuqata markan in amar la dul dhigay madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo lagu yiri haddii aad rabto xiriir wanaagsan inaad la yeelato dalka Mareykanka, suuragal maaha in aad si iibsato shidaalka wadanka Ruushka maadaama uu dagaal adag ku hayo wadanka Ukraine, isla markaana tallaabo kasta oo ganacsi oo lala sameeyo wadanka Ruushku ay ka dhigan tahay buu leeyahay Trump in la taageerayo balanbalka iyo dhibaatooyinka shacabka wadanka Ukraine ay wajahayaan. dhinaca kale Trump waxa uu si la yaab leh u amaanay madaxweynaha wadanka Turkiga, waxaana uu yiri waa saaxiib muddo dheer aan lahaa, waxaana hadda ka fakarayaa sidii aan ganacsi ula samayn lahaa wadanka Turkiga haddii madaxweyne Erdogan aan isfahanno ayuu yiri. dhinaca kale waxaa la isla soo qaaday arrinta laga yeelayo diyaaradda F-16 oo dawladda Turkigu ay si weyn u baadi goobayso. waa midda dagaalka ee Mareykanku uu soo saaro, taas oo horey looga mamnuucay wadanka Turkiga in laga iibiyo kadib markii uu hore u soo iibsaday nidaamyada difaaca cirka uu sameeyo wadanka Ruushka ee S-400 xilli gaashaanbuurta NATO ay si weyn uga soo horjeeday tallaabooyinka wadanka xubinta ka ah ee Turkiga uu ku dhaqaaqayo.
sida uu qorayo telefishinka Al Jazeera madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigaysa Recep Tayyip Erdogan ayaa kulan ku qabtay shir jaraa'id iyo wadajir aqalka cad kadib kulan heer sare ah oo looga hadlaya arrimo xasaasi ah oo dhanka ammaanka ganacsiga iyo siyaasadda gobolka ku saabsan madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in booqashadiisa Washington ay fursad muhiim ah u tahay xoojinta iskaashiga labada dal gaar ahaan dhinaca difaaca heshiisyada hubka waxna uu carabka ku adkeeyay in Turkiga uu doonayo inuu sii ballaariyo iskaashiga military iyo ganacsi uu la leeyahay waddanka Mareykanka dhankiisa madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa ku baaqay in wada xaajoodka diiradda ay ku saari doonaan arrimo ay ka mid yihiin diyaaradda dagaalka ee F-16 iyo canshuuraha ganacsiga Trump ayaa hoosta ka xariiqay in labada dal ay ku shaqeeyaan heshiis ganacsi oo waaweyn oo labada dhinacba faa'iido weyn u leh sida uu hadalka u dhigay marka la eego dagaalka Ukraine Trump ayaa Erdogan ka codsaday in Turkiga uu joojiyo iibsiga shidaalka Ruushka haddii Moscow ay sii wado dagaalka isagoo xusay in madaxweyne Putin uu ka niyad jabay tallaabooyinkiisan waa markii afraad oo Trump isla hadalkan uu ku dhawaaqo uu ku yiraahdo Putin waan ka niyad jabay sidoo kale Trump ayaa taabtay xaaladda Gaza isagoo tilmaamay in kulamo miro dhal ah lala yeeshay hogaamiyaasha gobolka isla markaana uu rumaysan yahay in heshiis nabadeed laga gaari doono dhawaan waxaan doonaynaa inaan dhammaan la haystayaasha hal mar sii wada dayno waxaan ku kulmi doonaa hoggaanka Israel si arrintaasi loo hormariyo ayuu tilmaamay ujeedadiisa waxay tahay inuu kulan la qaato ra'iisul wasaaraha nidaamka Israel Benjamin Netanyahu arrinta Syria ayaa la isla gorfeeyay Trump ayaa shaaciyay in Mareykanku uu qaaday qaar ka mid ah cunaqabatayntii saarneyd waddankaasi kadibna codsiyo ka yimid dalal ay ka mid yihiin Sacuudiga Turkiga iyo boqortooyada Qatar waxa uu tilmaamay in tallaabadan ay suuro gelinayso fursad ay dib ugu soo laabato isagoo xusay doorka Erdogan ee isbeddelka siyaasadda waddankaasi waxana uu ku ammaanay inuu yahay nin geesi ah Trump ayaa intaa ku daray in iskaashiga Mareykanka iyo Turkiga uu yahay fursad xasiloonida gobolka isagoo ballan qaaday in labada dal ay si dhow u wada shaqayn doonaan isla markaana ay iska kaashan doonaan arrimo ay ka mid yihiin ganacsiga iyo horumarka wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka ninka la yiraahdo Pete Hegseth ayaa ku dhawaaqay in ay isku yimaadaan in ka badan 800 oo generaal oo Mareykan ah isla markaana ay yimaadaan saldhigga Virginia ciidamada badda ee Mareykanku ay ku leeyihiin tallaabadan ayaa waxa ay ku aadan tahay baaliri hanaan la doonayo in lagu qaabeeyo dhismaha difaaca Mareykanka ka hor intaan lagu mashquulin siyaasadda amuraha dibadda walaaca ugu badan oo Washington ay qabto ayaa waxa uu yahay awoodda sii fidaysa ee dalka Shiinaha sida uu daabacay wargeyska The Washington Post waxa uu tilmaamayaa in wasiirka difaaca Mareykanka Pete Hegseth uu amar degdega u diray boqolaal generaal iyo taliyaal sare oo ciidan ah si toddobaadka soo socda uu ula kulmo saldhigga ciidanka badda Mareykanka ee gobolka Virginia tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid aan horey loo arag iyadoo la yeelayo ama loo yeeray ku dhawaad 800 oo generaal iyo taliyaal badda ah oo ku kala sugan gudaha dalka Mareykanka dalal kale oo dunida dacaladeeda ahna ay kuwa kale ka iman doonaan waxa kale uu sheegay in la iskugu yeeray taliyaasha ka howlgala goobaha dagaalka iyo meelaha istiraatiijiga ah sida Yurub bariga dhexe Aasiya iyo badda Pacifiga go'aankan ayaa keenay walaac iyo jahwareer gudaha ciidamada ah maadaama aan si rasmi ah loo shaacin ajandaha kulanka halka qaar ka mid ah saraakiishu ay muujiyeen cabasho ku saabsan baaliri in lagu cabasho ku saabsan iyadoo ay la doonayo in la qaabeeyo hanaanka dhismaha ciidamada waddanka Mareykanka si mar kale awoodda dalkaasi ay u noqoto mid si weyn caalamka uga dhex muuqata tallaabadan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo Hegseth uu horey ugu qaaday isbeddello muran badan dhaliya tan iyo markii uu xilka qabsaday waxaana ay ka mid ah baaliri dhismaha tirada generaalada iyo saraakiisha darajooyinka sare lana sheegay in la qorsheeyo dhimis gaaraysa ugu yaraan 10% taas oo dad fara badan oo saraakiil ah ay walaac badan ka muujinayaan qaar ka mid ah falanqeeyaasha difaaca ayaa rumaysan in kulanka degdega ah uu la xiriiri karo qorshaha cusub ee istiraatiijiyada difaaca qaranka Mareykanka kaas oo laga yaabo in dib loogu habeeyo
mudnaanta ciidamada iyadoo diiradda lagu saarayo difaaca gudaha Mareykanka ka hor inta aan lagu mashquulin qatarta Shiinaha oo muddo dheer loo arkayay hanjabaadaha ugu weyn ee amniga qaranka Mareykanka iyo qalqalka uu dareemayo. si kastaba ha ahaatee xog la'aanta rasmiga ah iyo waliba waqtiga kulanka oo ku soo beegmaya xaalad siyaasadeed oo cakiran ayaa sare u qaaday su'aalaha iyo waliba saadaasha ku saabsan waxa dhabta ah ee loo qorsheynayo in bannaanka la keeno si arrintaasi diiradda loo saaro. haddii aan bariga dhexe markaan u soo wareegana ciidamada Israa'iil ayaa gacanta ku dhigay nin da'aadda afartameeyada ka gudbay oo ku dhawaaqay in uu doonayo in uu 3 xabadood ku dhufto uu qaarajiyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil. cod iyo muuqaal uu ku baahiyo baraha bulshada ayaa si weyn u qabsaday. hase ahaatee wariyaasha ka howlgalaya dhulka Falastiin ee Israa'iil maamusho waxay leeyihiin tani waxa ay ku soo beegmaysaa xilli marxalad xasaasi ah uu nidaamkaasi dhaxda u fadhiyo. sida uu qoray telefishinka Sky News Arabic, booliska ayaa sheegay in ay xireen waa Israa'iil nin ku hanjabay inuu dili doono ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu xilli nidaamkaasi uu wajahayo xiisad siyaasadeed iyo dagaal ka socda gudaha magaalada Gaza. war-saxaafadeedku waxay boolisku ku sheegeen in ninka la xire uu yahay 40 jir ku nool magaalada la yiraahdo Kiryat Gat, koonfurta Israa'iil dhulka Falastiiniyiinta laga haysto. kulanka ayaa lagu sheegay in iskiisa uu u galay xarun boolis habeen ka hor intii aan la gelin baa la yiri maalinta ciidda Israa'iiliyiintu ay u dabaaldegaan, isagoo ku dhawaaqay in uu qorsheynayo iibsashada qori isla markaana 3 jeer uu toogan doono Netanyahu. arrintan oo dhalisay walaac badan gudaha Israa'iil. booliska ayaa isla markiiba xiray ninkan waxaana lagu wadaa in maanta ama berri loo gudbiyo maxkamad si dacwadiisa loogu soo oogo, iyadoo ciidamadu amnigu ay codsan doonaan in lagu sii hayo xabsi oo ay xabsi halaaleyn sameeyaan si sharciga nidaamkaasi ay ugu sii hayaan baaritaano dheeraada. dhacdan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Netanyahu oo siyaasadda gudaha hadda ka dareemayo walaac xoog leh. fariimaha noocan ay ku dhiirashada ahna waxa ay tilmaamayaan halka dadku siday u naceen ay gaarsiisan tahay. ciidamada Israa'iil ayaa weerar dhinacyo badan maanta ku qaaday magaalada Salxa ee wadanka Yemen, iyagoo beegsaday xarumo kala duwan oo ay ku tuhmayaan kooxda Xuutigu in ay ku shaqeeyaan. in ka badan 20 diyaaradood ayaa lagu weeraray magaaladaasi kadib hanjabaadii shalay ka timid wasiirka wasaaradda difaaca ee nidaamkaasi Israel Katz ninka lagu magacaabo. sida uu qorayo telefishinka Sky, wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ah ee Sanca ee wadanka Yemen ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay maanta fuliyeen weerar ballaaran oo cirka ah oo lagu bartilmaameedsaday xarumo muhiim u ah gudaha magaalada Sanca. weerarka ayaa waxaa ka qayb galay ku dhawaad 20 diyaaradood oo dagaal, iyadoo la sheegay inuu ka koobnaa in ka badan 10 duqeyn. waxaa la adeegsaday 65 gantaal iyo hub kale oo culus, taas oo ka dhigaysa weerarkii ugu xooga badnaa ee Israa'iil ay ka fuliso gudaha wadanka Yemen. sida laga soo xigtay warbaahinta kooxda Xuutiyiintu ay maamulaan ee Al-Musira lagu magacaabo, duqeymaha ayaa beegsaday xarunta korontada ee Dahban iyo guryo dad shacaba ee ku yaalaan xaafadda la yiraahdo Raqas ee degmada Ma'in, taas oo keentay dhimashada 2 qof iyo waliba dhaawaca 48 kale. dhinaca kale wasaaradda difaaca Israa'iil ayaa sheegtay in weerarka lagu burburiyay xeryo ciidan, xarumaha hoggaanka guud ee kooxda Xuutiga iyo kaydka hubka ay kooxdu lahaayeen, iyadoo laga dilay baa la yiri qaar ka tirsan dagaalyahanada kooxda oo ahaa kuwa khatar ku ah jiraalka amniga gobolka bariga dhexe sida Israa'iil ay ku dooday. warbaahinta Israa'iil waxay sidoo kale xaqiijisay in weerarka maanta uu qayb ka yahay ololaha military ee sii xoogaysanaya ee lagu bartilmaameedsanayo hogaamiyaasha iyo saldhigyada Xuutiga kadib weerarkii lagu qaaday magaalada Eilat, halkaasi oo ay ku dhaawacmeen in ka badan 50 qof, halka 3 ka mid ah ay ku jiraan xaalad aad u liidata. weerarka Israa'iil lagu qaaday ayaa laga dareemay xooggiisa qaybo ka mid ah dhulka Falastiiniyiinta laga haysto. si kastaba haatee ilaa amniga Israa'iil ayaa sheegay in weerarka noocaana ay sii socon doonaan, iyadoo qorshaha uu yahay in la kordhiyo cadaadiska iyo duqeymaha lagu hayo kooxda Xuutiga. akhyaartana la socota ay tabinta qaybta koowaad ee caawa iyo qubanaha Barrow Show. intaas ayaan ku abiyayaa, warar kale ayaa noo soo socda halkan indhaha ku haya. waa Barrow idile
isma dhaaf. Ramaas Hotel and Restaurant waxa uu leeyahay adeeg dhameystiran waxaana ku diyaara qolol jiif oo heer sareeya hoolka aroosyada iyo shirarka maqaayad furan 24 saac oo leh raashin dheef iyo dhadhan macaan internet xawaare sare leh wiish iyo amni joogto ah. Ramaas Hotel waa doorashadaada ugu fiican waxaana uu ku yaalaa Bakaaraha agagaarka isgoyska Carweydka.